Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada casharkeena labaad ee aynu ku baranayno maadada Englishka qaybta grammarka. Maanta waxaynu casharkeenan daaran kusoo qaadanaynaa vowels and consonants. Waa maxay vowel iyo waa maxay consonants? Intaynan u gelin casharkeenan waxaan dib u yara eegaynaa casharkii kan ka horreeyay oo aan kusoo qaadanay alphabet. Waxaynu sheegnay in alphabet la yiraahdo xuruufta Englishka ayna tahay 26 xaraf. Isla casharkeenan maanta aynu baranaynana wuxuu la xidhiidhaa kii kan ka horreeyay oo aan kusoo qaadanay. Vowels waxaa la yidhaahdaa shaqal. Afkeena hooye ee hodanka haddaynu ku macnayno vowel waa shaqal. Marka aynu isla garanno vowel ama shaqalka waxaynu isweydiinaynaa shaqalow maxaa tahay. Shaqalku waa 5 xaraf oo ku jirta xuruufta Englishka alphabet of English. Waxayna kala yihiin sida tan A, E, I, O iyo U. Aan ku celiyo mar labaad A, E, I, O, U. Waxay iskala mid yihiin luqadeena Soomaaliga sida aynu nidhaahno A, E, I, O, U oo Englishka loo bedelay A, E, I, O, U. Haddaba haddaynu isla garanay vowel iyo waxa uu yahay waxaynu kaloo isla eegi doonaa consonants. Consonants macnaheedu waa shibane. Sida ay u leedahay luqadeenu af Soomaaliga shibane ayay Englishkuna u leeyahay. Shibanaha Englishku wuxuu ka kooban yahay 21 xaraf. Bal aynu eegno shibanaha Englishka consonants of English. Consonants of English waa B, Z, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Waa 21 xaraf. Mar walba maanka iyo maskaxda ku hay 21 xaraf ee consonants ah oo shibana ah iyo 5 vowel ah oo shaqalayaala. 5 vowels and 21 consonants ayaa la isku yiraahdaa alphabet of English. Aan mar labaad ku xasuusiyo consonantskii B, Z, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. One more time. Mar labaad ila akhri B, Z, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. That is all. Haye si kooban haddaan u guud maro casharkeenan waxaynu ku soo qaadanay waa maxay vowel oo aynu isla fahanay inuu yahay shaqal ayna kala yihiin sidan A, E, I, O, U. Iyo waa maxay consonants isagna sidoo kale aan isla fahanay inuu yahay shibanaha Englishka uuna ka kooban yahay 21 xaraf ayna kala yihiin B, Z, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Vowels oo 5 ah iyo consonants oo 21 ah marka la isku geeyana soo baxaysa 26 xaraf. 26kaas xaraf lana la isku yiraahdo alphabet of English ama xuruufta Englishka. Guud ahaan casharkeenan maanta halkan ayaan ku soo afmeerayaa. Intaynu casharkan cashar lamida ku kulmayno waxaan nigaga tegayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.